أحمد نور وويل 15 jir ah 7 sano oo kaamil ah sariir saaran waxa haya cudur naafeeyay oo hooyadiis ay ku sheegtay ma ishan sani jarto jalaya dhibkan hablaa atmay wahan aragtay torosin soo dhibkan ma cudur shay ma ilahay kan oo madaga yago waliare ma dhaqdhaqaaqo dhinac isuma gedin karo halkan nooc kaliya ayuu u jiifsan karaa waxay ii sheegtay hooyadiis in sidii uu halkan nooc ugu jiifay hoos oo dhanba boogowday xakudadan ku beerto sida aad arkaysaan waxaa hooyada wiilkan dhashay la keli noqotay bugtada ku daba dheeraatay wiilkeeda iyo raadinta biilka caruurta la dhalatay oo ay ku dhiban tahay tiyo uusan jirin aabbo garab istaaga waalid tabantaabiya ehel iyo qaraabo u soo gurmada waxayna wehel u noqotay murugo iyo tiiraanyo joogta ah taasoo allihii u qadaray keliya uu ka saari karo diin walaay aan tabartay hay la harbi madan miisaan ku bowe tabar aan hayna male kan anta iyaalo aan korrooga arinyooge jilaatin shaqaysada ay tarmiishkayga asu ay awna anagu awki maruma maya ay aw anile kan ha anile guri ayaalka markuu meeqo shan kuri gabru todoba ninka markuu adiini idakirti anina idakiri kan le madan hoole hol kalmaha ayaalki kala nololiyo maqyaasan waa dhibaato waalid kasta la xanuunsanayo oo laabtiisa dhaqaajinaysa kuna beeraysa hooyadan in ay la qaybsadaan xanuunka wiilkeeda sanado sariir fuulka ka dhigay waxa ay jeclaan lahayd in ay mar daawo kala quursato wiilkeeda bulshaduna ay taageeraan isbitaalna ay la geeyaan iyadoo walwalsan laabteeduna ku taagan tahay armud dawo helaa uusan wiilkeeda u bixin bani oo gargaar libiya gargaar aan baahnaan anagoonka daawe anagayna naanaysada ayaalkayna aragday daryeel an lahayna hanaani an baahnaan wala kale ilaahay aqoon anagoon daawadiis yaa indaro marka dadkana noloshiis ma qiyaasan oo intan awlada uso baal roogtan aragday anile rooray ay awanu marka dhibaatada aan hayto taasi taran baahan daawili jeegay daawadaas ursumay fadfad maagal kari markii beesan daawada ma ili aray $600 yaa la gadaaliyaa daawadiis meela la sheegahay aan ma arag laakiin tilmaamay bay dhow dhateen la sheegahay maseen hel agmin oo ma inseedeen madan ana fool taasa kan ba hadiisa oo mushi hoogay oo dhibmo oo ilaa ma ana hatta nijaasadi oo shalay galiya meel walka dhiga waaysan baan lahayn ama ebru banaanka tuuru aadamka waxa uu isa saacidaa marka ay dhibaato mid ka mid ah soo wajahdo sidaas darteed dhamaanteen waxa ina saaran mas'uuliyad ee ina keena aan caawino hooyadan xaaladaysan ee u baahan walaalo u damqada oo la qaybsada duruufta maanta dabartay